intaa ka gadaal marka hore waxaan aad ugu mahadnaqayaa soona dhaweynayaa dhalinyarada gurmad ururkaas marka waxa weeyaan markaynu nahay galbeed iyo bari marka laynoo kala qaado waxaa la yidhaahdaa qoladeeda reer barigu waxbaanu ka faataa baq badan oo waxaanu idhahnaa hadda ninkaasi waa shiishyahanoo shilinkuu toogtaa shilinka laakiin reer galbeedku iyagu had iyo goor shiish bayba ku jiraan shilin ma toogtaane ra'yigay toogtaan ra'yiga waa niman intaa shiish ku maqan ha toogteene maxaa lagu xantaa waxaa marka lagu xantaa ha toogteene waxba isma dhaafiyaan qodobka kale waxa weeyaan way jirtay USB markii xisbiyada la sameynayay sidoo ninkii dhalinyarada halkan ka sheegay odayaashuna waa wadoogi wixii nan isaa qaba baa waxay la bixeen USB laba xisbiyo kale way jireen dabeetana waa tii la dardarmayo ina kiciya la yidhi Soomaali baa la xoreynaya saddex gobol kalena aan doonayna Mariya bariga garaadku wuxuu yidhi warbal umusha waa la baxnaaniyaa oo 6 bilood inoo daayay iyadaba 40 baa la daayay laa yaa garaad baa nimankiisa qiraadeen meeshii halkaas la aaday markii halkaa la aaday qoliyaha iyagan hartigu deeniyo baan ugu tagnay xagga joogay meeshii nimcaanu afka gelin qoliyihii magaraysa nan isaaq ahaa ee aan isku reer waqooyiga ahayn reerka halkan fadhiyay kamid ahaa waa kala aamusna xaggaas aan ugu rajeensan sidaas markay dhacday waa laga soo waaday markii laga soo waaday Soomaaliland baynu sameynay halkan ka baa la soo maray nabadgelyo la sameeyay markiiba si fiican baa wuxuu fahanteen war wuxuu waa sidaas sugan nabaydaan oran oo bal jooga annagu iska hardafanay nafsina waa nahayay xuduud halkaas oo dheeraan oo 800 kiiloomitirna waa ku mashquulsanayn oo la yiri Soomaaliland bay u dhaxaysaa waynu goosanay ilaa goosashada mar hore aynu sheegnay taasuna baylaheedeeda ilahay halkan markaa waxa ka dhacay isbedelo madaxweynayaal baa ka noqoteen ku xigayaal baa ka noqoteen dalkii waa kan oo maanta doorame laba mid ah meel laba alxamdulillaah rabbil caalamiin horena waa u sii soconaysaa insha Allah taala